laba in la isku dirina waxa keenaya kitaabka Allah oo lagu dhaqmin oo maanta kali aan laga soo reebay islaan marka la mehersanayo ama dhaxal marka la joogo waxa la oranaya shiiqi wax meherinaya aaway ama shiiqi wax dhaxalaya aaway inta kale kitaabka Allah lama soo hadal qaado markay qabiiladu diriraan kitaab Allah lama xuso marka wax la maamulayo kitaab Allah lama sheego marka wax la xukumayo kitaab Allah lama sheego rabbigiina uga baqa wax Allah jalla wa ala oranaya rabbi isagoo noo sheegaya raxmadda iyo khayrka iyo liibaanta waxyaabaha lagu helo wax Allah oranaya wa ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun ballantayda oofiya tiina aanidi oofiye ballantayda oofiya kitaabka Allah ilaaliya ballantayda oofiya xukunkayga fuliya rabbi wax oranaya tiina ana idin oofinaya roobka iyo raxmadda iyo khayrka ana idin siinaya kali ayga baqow Allah jalla wa ala oranaya dibka waxa looga bixi kara oo kali ah Allah in la raali geliyo oo kitaabka Ilaahay la ilaaliyo wax Allah jalla wa ala oranaya falawla irjaahum ba'suna tadarru walakin qasad qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun maxay u soo laaban waayeen maxay u qushuuci waayeen markuu cadaabkeenu ku dhacay imtixaankeenu markuu helay oo waxa weeye fawdo ay ka bixi waayeen maxay nagu soo laaban waayeen oo u fahmi waayeen dibka meesha uu ka jiro halka meesha uu ka jiro maxay u goobi waayeen oo nagu soo laaban waayeen rabbi asa wajalla nooga jawaabay rabbi asa wajalla nooga jawaabo yiri walakin qasad qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun qulubtooda qallashay wax u garan waayeen meesha sartu ka quruntay oy hawshu ka toosila alahay oy ummadu islaax iyo nabad ka gaari la alahay rabbi jalla wa ala noo sheegay walakin qasad qulubuhum qulubtooda qallashay qulubtooda garan weyda rabbi in loo laabto oo waxa weeye shaydaanka u qurxiya waxa ay samaynayaan shaydaanka u qurxiyay oo wax fiican uga dhigay kitaabka Ilaahay in la baalmaro la ilaalin waayo shaydaanka u qurxiyay halka waxa ku jira Allah in la raali geliyo marka qabiiladu diriraan kitaabka Allah in lagu maslaxeeyo oo kitaabka Ilaahay lagu heshiisiyo marka ummad la xukumayo kitaabka Allah in lagu xukumo marka ummad la dhaqayo kitaabka Ilaahay lagu dhaqo islaanta marka la guursanayo kitaabka Ilaahay lagu guursado marka la dhaxlayo kitaabka Allah wax lagu dhaxlo qofka noloshiisa oo dhan inuu ku saljaro kitaabka Allah inuu ilaaliyo sida waxa lagu gaarayaa xal rabbi oo ku keeno adduuniya aakhiraba guul adduunka rabbi ahadka inuu ugu nimceeyo oo ummadda nuucaasa ilaaliyo kitaabka Allah u barwaaqeeyo noloshooda hagaajiyo aakhirana Allah awsiya daarta ugu nimcada badan lianna daaru dunya wax yar weeye rabbi wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay